ka sheekeynaynaa gabar yar oo u dhalay boqor taasoo lagu magacaabi jiray Selina waxayna aad u jeclayd shimbiraha mar walbana waxay hamiyi jirtay inay u noolaato sidii shimbiraha u nool yihiin oo ay mar walba iska faraxsanaato. Selina waxay saaxiib la ahayd gabar jaariyad u hayada mar walbana waxay la wadaagi jirtay arrimaheeda, farxadeeda iyo murugadeedaba. Gabadhaas ayaa lagu magacaabi jiray Maggie, balse war uma aysan haynin Maggie inay tahay qof aad u xun oo weliba dhooni ah. Maggie ayaa hata ka hor waxay la kulantay naag saaxirad ah waxayna ka soo qaadatay muraayad 2 xaba ah. Labadaas muraayadood ayaa waxay awood u lahaayeen 2 qof inay wajiga u kala bedelaan haddii labadaas qof ay hal mar isla fiiriyaan labada muraayadood. Labadaas qof ayaa waxay awood u leeyihiin muraayad inay mar labaad wajiga kusii kala bedeshaan oo qof walba wajigiisa saxda ah uu dib u soo ceshto inta aan la jibinin muraayada. Maggie waxay raadinaysaa Janice ay arrinkaas ku samayso. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqorka oo aabba u ahaa Selina waxa uu go'aansaday gabadhiisa inuu u guuriyo. Wuxuuna ku yiri gabadheydii waxaad guursanaysaa amiirka boqortooyada dariskeena ah. Guurka kadibna labadeena boqortooyo xiriir ayay yeelanayaan. Selina ayaa ku tiri maya aabbo ma kugu raacin, aniga ma dii weydiisid qofka aan guursanayo, waxaan rabaa aniga inaan soo doqdo oo anigoo raalli ka ah aad ii guurisid. Boqorka ayaa ku dhahay adiga waxaa tahay amiirad, amiiradahani waa inay mar walba danta boqortooyada ay ka hormariyaan danahooda khaaska ah. Selina waa iska soo laabatay oo qolkeedii ay soo gashay ayadoo la wadaagaysa dhibaatada haysata Maggie oo ahayd saaxiibteed. Waxayna ku tiri markii aan yaraa ayaan isjeclaanay wiil yar waxaana ku balannay inaan labadeenu isguursan doono, balse nasiib xumo waan kala lumnay labadeena oo kala magaalo ayaan degnay ilaa ay haddana warkiisa ma hayo. Kaliya jijintan yar oo isaga gacantiisa igu sameeyay welibana dhagxaanta badda uu ka sameeyay ayaan hayaa. Mar walbana waxaan rabay inaan raadiyo waan soo helo, balse aabahay anigu aanan guur diyaar u ahayn ayuu igu qasbayaa inaan guursado. Maggie ayaa la yaabtay oo ma amiir ay diidaysa inay guursato ayay tiri been badana ka waran haddii aan aniga amiirkaas guursan lahaa sidee ay ahaan lahayd. Amiirada gaari baa la saaray si ay u soo aragto amiirka ay guursan doonto. Sidoo kale Maggie ayaa hore u sii raacday. Selina aad bay u walwalaysaa waxayna la sheekaysatay Maggie oo waxay ku tiri aniga ma rabo inaan nolosha la qaybsado qof aanan garanaynin oo aan weligii la kulmin, kaliya aabahay ayaa ii dooqay anigana kuma qanacsanay. Sidee ayaan uga baxsan karaa ayay kula tahay ii sheeg. Maggie ayaa arrinkan fursad u aragtay oo waxay istiri ka waran muraayadda haddii aad isticmaashid oo aad wajiga ka bedelatid sidaas ayaan bataajir ku noqonayaa ka waran. Kadibna Selina ayay ku tiri boqoradeydii haddii aadna rabin inaad guursatid ninkan aniga ayaa guursanayo oo waan ku bedelayaa oo muraayadahan ayaan ugu caawinaya inaan wajiyadeena kala bedelano oo qabso midda kalena aniga ay gacanta ku haysanaya waa inaan hal mar wada fiirinaa labada muraayadood kadibna wajiyadeena ayaa kala bedelmaya. Haya ayay tiri sidii ayayna sameeyeen isla markiiba labadoodii waji way kala bedesheen oo amiiradii Selina ahayd way isku bedeshay Maggie Selina ayay wajigeedii qaadatay. Intaa kadib Selina aad bay u faraxday waxayna tiri saacadan laga bilaabo Selina ma ihi ee Maggie ayaan ahay oo jaariyadii amiirada ayaan baahay oo Selina wajigeedii waxa uu ekaaday Maggie sidaas ayna jaariyadii ugu ekaatay. Sidoo kalena Maggie ayaa noqotay amiiradii oo wajigeedii ayay qaadatay. Selina waxay u mahad celinaysaa saaxiibteed Maggie balse waxaysan ka warhaynin qosolkan iyo dowlad cadeyntan inay yihiin wax bug ah oo ayada lagu dabay welina lagu khayaanayo. Maggie ayaa ku tiri boqoradeydii waan ku faraxsanahay adiga farxadaada. Qorshuhuna wuxuu ku socday si siman ilaa ugu dambeyntii ay ka soo gaareen qasrigii u deganaa amiirka loo guuri rabo Selina. Arrinta la yaab kale ayaa waxay noqotay inaysan cidna aqoonsanin gabadhan Selina isu soo ekeysisay. Amiirkii yar ayaa ku dhahay amiirad Selina ku soo dhawow qasriga, run ahaantii aad u qurux badan tahay. Maggie oo iska dhigaysa Selina ayaa ku tiri aniga waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo. Wuxuu ka yiri hadiyadan ayaan kugu talagalay. Cabirka kabahaagan aabahaaga ayaa ii sheegay sidaas ayaan kabahan khaaska adiga kugu sameeyay waan filaya inaad jeclaan doontid. Waan ka helay ku tiri waan isku tijaabiyo waan hadda gashtaa. Laakiinse Maggie cagaheedu waxa uu ahaa kuwo aad u waaweyn oo Selina oo kale uma aysan caga yaryareen. Jude waa uu ka yaabay oo waxa uu isweydiiyay sidee ay ugu ekaan waayeen. Maggie ay ku soo booday kabihii oo tiri aniga ayaa soo gashanaya weliba si dhib yar ayaan ku gashanayaa. Maalmahan oo dhan ayaan lugeynayay welibana ordayay cagahaygiina way ballaarteen. Markaas ayuu ku yiri waa yahay dhib malan laakiin waa arrin aad iga yaabisay. Hadda waxaan filayaa inaad aad u daalan tahay orod qolkaaga iska aadso tartiibkaaga halkaas isaga naso mar kale aan kulmi doonaa. Ayadiina waa yahay ayay tiri ayadoo dhoola cadaynaysa kadibna si dhaqsi ah ayay ku gashay qasriga ayadoo hore isku sii raaceen Selina. Markii labadooda kaliya isku soo hareen oo dadkii oo dhan ay meesha ka baxeen ayaa Selina waxa ay tiri nasiib badanina si dhaqsi ah ayaad uga soo badbaaday weel ogaan rabay maanta. Maggie ayaa la soo booday gabarhii afkaaga wax ku reebo ma ogid miya aniga inaan ahay amiirad Selina adigana kaliya waxaa tahay Maggie
shaqaalahayga iska ilaali in la ogaado. Selina ayaa ugu jawaabtay, haya amiirad Selina, waan kuu ballan qaadayaa cidnana ma ogaanayso. Kadibna Maag ayaa ku tiri, hadda kabaha ii geli, welibana si qurux badan iigu geli. Amiiraddii beenta ahaydna waxay go'aansatay inay gashato kabaha uu soo siiyey Amiir Juud. Selina ayaa ku tiri, amiiraddeedii maxaad isugu dhibaysaa kabahan? Maad kaba kale oo ka qurux badan welina adiga kula fac aad raadsatid. Maagi ayaa la soo booday qaylo oo ku tiri, maxaa kaa gala adiga? Maxaase ka fahamsan tahay? Shaqadaada keliya waa inaad aniga kabaha aad ii gelisaa, waxay rabtaa kugu qaadato. Inkastoo cagahu ay xanuunayaan, haddana xanuunkaas wuu u qalmaa inaan noqdo boqorad oo weliba madaxa aan surto taajka. Maag ayaa waxay weydiisay Selina waxyaabaheeda khaaska ah iyo nolosheedii hore, kadibna ay uga sheekayso amiirka si aanan loo ogaanin oo loo fahmin sirtooda. Selinana way ogolaatay, waxayna la wadaagtay arrimaheedii hore iyo sheekooyin aad u tiro badan. Selina way baxday, balse waxay meesha ku ilowday jijinteedii yareed. Jijintiina waxay u gacan gashay Maagi oo tiri, tan soomahan jijinta ee ku waaleed waa inaan aniga gacanteeda ku haystaa, aniga ayaa Selina ah, aniga ayaana jijintan. Subaxdii xigtay Amiir Juud waxa uu imaaday inuu kaxeeyo amiiradda si ay u soo wareegaan darjiimaha quruxda badan. Laakiin waxay wadataa kabo aan size-keeda ahayn, taasoo ugu dambeyntii ku soobay inay dhulka ku dhacdo. Waxaana ka soo dhacday jijintii dhagxaanta badda oo la isku xirxiray ka samaysneed. Waxaana arkay jijintii Juud oo isla markiiba xasuus galay. Markaas ayuu yiri, Selina, jijintan ma adiga ayaa hayay? Ma xasuusataa maalintii aan ku kulmaynay badda? Waan ku ballan qaaday inaan ku difaaci doono. Oo wiilka jijinta siiyey ma ninkan baa? Sidoo kale Maagi ayaa isweydiisay, alla jijintaydii. Maagi ayaa u dhiibay jijintaydii, waxayna bilowday inay soo xasuusato jijintan iyo sida ay ku heshay. Waa sanado badan ka hor xeebta agteeda. Juud iyo Selina ayagoo caruur ah ayay halkaas deris ku ahaayeen. Wiilka yarna waxa uu sameeyey jijin weliba dhagxaanta badda ayuu ka sameeyey. Markaas ayuu hadiyad uga dhigay gabadhii yareed ee lagu magacaabayay Selina. Wuxuuna u sheegay in mustaqbalka ay isguursan doonaan labadooda. Ayadana waxa ay siisay dhagax bocool ah. Laakiinse waqti yar kadibba labadoodii way kala lumeen oo kala magaalo ayay u kala guureen. Amiir Juudne waxa uu waqti badan ku bixiyey siduu ku heli lahaa gabadhaas. Ugu dambeyntiina wuxuu ogaaday inay amiirad ka tahay boqortooyo deriskiisa ah. Waxaanu isku dayay wax walba uu awoodo si uu aabihiis uga ogolaado inuu guursado gabadhaas. Juudna waxa uu weydiinayaa amiiraddii bogta ahayd, ma xasuusataa waxaan aniga ku siiyey? Ayadase waa mid bug way fikirtay, waxay istiri wax qaali waa inay ahaadaan waxa ay siisay. Haa, waan xasuustay ku tiri, faraanti soo ma ahayn? Maya ma ahayna umaleeyaa. Jijin maya, katiinad qalina amuu ahaa. Juud ayaa ku dhahay, waad ilowday iska daa, laakiinse aniga weli waan xasuustaa. Waxay kadib Juud waxa uu arkay weliban aad uga yaabiyey gabadhii shaqaalad ahayd oo indhaha ku gubaysay labadooda. Markaas ayuu isweydiiyey, yaa waaye gabadhan, maxayna sidaan ay kugu fiirinaysaa? Weligay lama aanan kulmin, haddana wejigeedu wuxuu u muuqdaa mid aan aqaano. Qolka ay ku soo laabteen. Selinane waqti badan ayay fikiraysay ka hor intaysan la hadlin Maagi. Markay damacdayna Maagi ayaa ku tiri, waan kuu sheegay aniga ayaa amiirad Selina ah. Selinana waxay ku tiri, Maagi dhab ayay iga taagan tahay, waxaan rabaa inaan wejigayga hore ku soo laabto. Juudna waa qofka aan raadinayay, isaga dartiis ayaana waxaan oo dhan u sameeyey. Laakiin Selina waxay rumaysan la'adahay in saaxiibteedii ay khiyaantay. Maagi ayaa ku tiri, ma rabo wejigaaga inaan kuu bedelo. Muraayadan intay gacanteeda ku jirto, qofna ma rumaysan doono adiga inaad tahay Selina, weliba amiiradda saxda ah. Aniga ayaana ahaanayo inta cimrigay ka dhiman amiirad Selina, waana guursanayaa. Amiir Juud isla markii waxay ku dalbatay askar oo waxay ku tiri, shaqaaladan way dab daran tahay, ha la qabto, xabsiga meesha u kululna ha la geeyo. Gabarihii adigana la soco, aniga ayaa ahaan doono Selina. Kadibna amiiraddii way soo baxday, waxayna u timaaday Amiir Juud ayadoo wax ka codsanaysa. Waxay ku tiri, amiirkaygiiyo waxaan kaa codsanayaa in la dilo shaqaaladeyda Maagi. Waxay isku dayday aniga inay wax yeelayso. Laakiin waxaan ku weydiiyey, soo ma ahayn jaaridaadu kugu dhaweyd oo saaxiibtaad la ahayd? Haa ayay tiri, laakiin waxay noqotay qof aad u xun, mana rabo qof sidaas oo kale ah. Amiirkii ayaa isweydiiyey su'aalo oo waxa uu yiri, sababtee ay sidan dhaqsiyaha badan ugu go'aansatay in la dilo shaqaaladii soo raacday ayada weliba safar dheer ay isku soo aamintay. Waxaa kaloo iga yaabiyey markii aniga isoo fiirinaysay gabadha shaqaalada ah, waa inaan soo ogaadaa oo aan lugahayga ugu tagaa gabadhaas. Waxa uu u tagay ayadoo xabsiga dhex fadhisa welina fikiraysa. Markaas ayuu ku yiri, maxaa kugu kalifay inaad dhibaatayso amiiradda? Markaas ayay ku tiri, amiirkaygiiyow aniga i rumayso, arrinka sidaas ma ahan. Aniga waa lay khiyaanay, aniga ayaa ah amiiradda saxda ah ee Selina. Laakiinse Juud waa uu aamini waayey arrinkaas. Waxuuna ku yiri, maxaa kaa khaldan gabar yahay? Ma ogid miya been abuurashadu inay tahay dambi aad u weyn? Markaas ayay ku tiri, waxaan kuu sheegayaa hadiyadda aan ku siiyey waqtigii hore aan yaryarayn inay ahayd bocool. Kadibna wuxuu ku yiri, sidee ayaad ku ogaatay ii sheeg? Oo arrinkaas aniga iyo Selina oo kaliya ayaa ogaa.
ayadiiba waa taa ilowday, adiga sidee ayaad ku ogaatay? Markaas ayay soo xasuusisay sheekooyinkii dhexmari jiray waagoodii yaryaraa. Kadibna amiirka waxuu bilaabay inuu qayb ka mid hadalkeeda uu rumaysto, qaybna shaki uu ka galo. Anigana waxaan ay ku tiri boqorada saxda ee Selina ah. Maagi ayaana wajiyadeena kala bedeshay ayadoo isticmaalaysa muraayadan. Aniga halkan muraayad ayaan haystaa, ayadana tii kale ayay haysataa. Amiirka ayaa ku dhahay ilaa hadda kuma aanan aaminin. Kadibna waxay ku tiri isii waqti aan kugu caddeeyo. Haye ayuu yiri, waan arkaynaa. Runtan aad baan u danaynayaa inaan ogaado. Maxaad samayn kartaa? Qorshe ayaan hayaa ayay tiri. Marka hore shaah ayaad usoo samaynaysaa Maagi, welina waxaad ugu soo daraysaa malab. Waxaan ogahay malabka in xasaasiyad ay ku qabto. Shaaxaas malab kale u geey, aniga ayaa runta ku tusinaya. Isagiina sidii ayuu sameeyey, waxuuna soo qaaday koob shaax ah oo malab ka buuxo. Shaaxaasna waxa uu dhiibay amiiradii bugta ahayd. Ayadana ayadoona ka shakin ayay cabtay, wayna dhamaysay koobkii shaax ahaa weliba si dhaqsiya ah. Isla markiiba waxaa ka soo baxay nabaro iyo finan aad u tiro badan xasaasiyadda daraadeed. Oo malab miyaad igu soo dartay? Malabka xasaasiyad ayaan ku qabay, ku qaylisay. Waxayna la soo baxday muraayadeeda si ay isugu fiiriso. Isla xilligaas meesha waxaa joogtay amiiradii Selina ahayd oo isku qarinaysay. Ayadana waxay la soo baxday muraayadeeda. Ayadana way fiirisay muraayada, isla markiiba wajiyada ay kala bedesheen. Maagina wajigeedii saxda ahaa ayaa la ogaaday. Weliba Juud oo hortaagan way isku naxday, wayna argagaxday isla mar ahaantaana. Selina ayaana hortooda soo istaagtay oo fashishay ayadoo dhan. Markaas ayay tiri Juudow, hadda soo ima aaminaysid, waa shaqaaladeyda Maagi way i khiyaantay. Aniga ayna iska kay dhigaysay, waxayna rabtay aniga in la i dilo. Markii uu hadalka ka koobiyey Selina aad buu u carooday amiir Juud. Waxuuna yiri Maagi runta haddii aad qiran weysid waan ku dili doonaa ogow taas. Maagina joos kale ma lahayn oo aan ka ahayn inay iska qirato dembigeeda. Waxayna tiri dhooninimo ayaa i waashay, iska kii cafiye labadiina, dembiyaan idinka galay. Juudna muraayadaha ayuu gabdhihii ka qaaday, kadibna waa uu jijibiyey. Waxuuna yiri maanta ay ugu dambaysa in la isticmaalo muraayadahan. Gabadhiina waxa uu dhiibay askar oo wuxuu yiri xabsiga hala dhigo, meesh ugu kulul weliba yaana loo ogolaan inay mar dambe soo baxdo. Selinana waxay ku guulaystay muuqaalkeeda iyo wajigeeda inay dib u soo ceshato. Waxayna ku tiri Juudow, aniga kaliya waxaan ka baxsanayay arooskan uu aabbahay kaliya qorsheeyey, balse waxaaba noqotay qofkii aan raadinayay oo aan guurkiisa diyaar ku ahaa. Labadoodiina way isguursadeen, welina si farxad leh ayaa arooskoodii loo qaban qaabiyey. Waan filayaa sheekada in aad idin soo jiidatay, balse aad ka hilmaanteen like-ta. Please ha hilmaamina like saar, sidoo kalena channel ku soo biir oo subscribe dhaho.